السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنال كمر كلا سود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وأربعة وأنا لحي لباتنك بيش السدادات أغسطس سنة كلابدا كون إيا لحي لباتنك مقالك محربا إن ندكول وداغو وزارة أرمها دبادة مريكان كاهو شالي كودا واقضي إن لكان سلاي دمان بددكي انترفيو ذا لنع فيزياشا وبلانسانا سفارة مريكان كل يهي قود أهان عالمك هذا بس سببتها loo kansalay balamihii interviewada ama wareysiyada dadka laga qaadi lahaa maxay tahay ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo waliba arintan oo ku soo beegantay 5 maalin kadib markii garsoore federaal ah uu maamulka madaxweyne Trump uu ku yiri ganaaxa dhinaca aad ku soo roteen dadka viisayaasha 75 wadan la siin lahaa in ay sharci darro tahay ayuu garsoorahaasi uu yiri arintaasina waan idin la wadaagaya gabadhii la ratay Lindsey Graham oo ranti bishii hore geeriyooday ayaa waxay ku guuleysatay doorashooyinka Israa'iilka ee shalay ka dhacay gobolka South Carolina hadaba madaxweyne Trump ayaa si weyn u taageeray isla markaana November haweeney dimuqraadiyada ay la tartami doonto xisbiga dimuqraadiga ka socota arrimahaasi ayaan rabaa inaan idin la socodsiiyo balse marka hore soo dhawaada waxaan ogeyn 5 maalin ka hor jimcihii la soo dhaafay garsoore maxkamad federaal oo fariistay New York in maamulka madaxweyne Trump uu ku sheegay in ay sharci darro tahay sababta 75 wadan in viisayaashooda la process gareeyo siyaasadaasi oo madaxweyne Trump uu ku soo rogay 75 wadan in ay sharci darro tahay ayaa garsoorahaasi uu sheegay isla markaana ay dhaafsiisan tahay awoodda wasiirka arrimaha dibadda ee Marco Rubio arintaasi markii ay soo baxday kadib ayaa maalnimadii shalay ahayd haddana waxaa soo baxay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay hakad gelisay dhammaanba viisayaasha ama ballamihii dadka viisayaasha u ballansana ee safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu ku leeyahay guud ahaan caalamka waxana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay xaqiijisay in dadkaasi ballamahooda mar kale dib loogu qaban doono sabab la xiriira tababar la siinayo shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu guud ahaanba caalamka uu ku leeyahay waxana wasaaradda arrimaha dibadda ay xaqiijisay in ay bilowday tababar ballaaran oo la siinayo dhammaanba shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu ku leeyahay guud ahaanba caalamka taasina ay sababtay in dib loo dhigo ballamihii dadka viisayaasha u ballansana interviewada laga qaadi lahaa sabab la xiriira si waqti loogu helo tababarkaasi la siinayo shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu ku leeyahayba guud ahaan caalamka hadaba tababarkan muxuu yahay marka shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu ku leeyahay guud ahaan caalamka la siinayo maxaa looga gol leeyahay arintan waxay qusaysaa arintii public charge oo dawladda Mareykanku ay ku dhawaaqday oo ah dadka marka Mareykanka ay yimaadaan caawinaada dawladda ku tiirsan sida in kaar caafimaad la siiyo sida in guri laga bixiyo sida in kaar cunto la siiyo sida lacag kaasha in la siiyo dadkaasi ayaa la doonayaa in shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha Mareykanku uu ku leeyahay guud ahaan caalamka loo tababaro in marka interviewga laga qaadayo dadkaasi viisayaasha dalbanayaba in su'aalahaasi la weydiiyo hadaba marka waxa ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda in shaqaalaha safaaradaha iyo qunsuliyadaha loo tababari doono sidii ay u ogaan lahaayeen dadka viisayaasha dalbanaya kuwaasi oo laga yaabo inay noqdaan kuwa ku tiirsan caawinaada dawladda Mareykanku ay bixiso waxana ay sheegtay dawladda Mareykanku in caawinaadaasi ay tahay mid qaas u ah dadka Mareykanka ah ee u qalma ee u baahan marka qofka marka interviewga la weydiinayo dadka qaxootiyada iyagu kuma jiraan qaxootiyadu marka ay Mareykanka yimaadaan waxay xaq u leeyihiin 3 ilaa 6 bilood ilaa iyo sanadba iska dheh in dadkaasi dawladdu ay caawiso ilaa iyo ay ka helayaan dukumeentiyadooda dhinaca sharciga ama kaar shaqo ama green cardkooda amaba sidoo kalena waraaqa ay ku shaqaystaan in isla markaana dadkaasi lugahooda ay isku taagaan markaasina ay shaqo helaan oo qofkaasi dawladda uu ka maarmi karo laakiin dadka viisayaasha ku imaanaya waa arintan marka hadda dhammaanba marka ballamihii dhinaca viisayaasha sababta loo joojiyay waxay tahay in shaqaalaha safaaradaha Mareykanka iyo qunsuliyadaha loo tababaro in marka interviewga ay qofka ka qaadayaan ay su'aashaasi weydiiyaan oo la yiraahdo marka aad Mareykan tagto dawladda caawinaad ma weydiisanaysaa haddii aad tiraahdo reject ayaa indhaha laga gelinaya kadibna gurigaada ayaad aadaysaa marka
marka dadka interviewada mari doono arintan ka digtoonaada markii su'aashaasi lagu weydiiyo waxaad tiraahdaa warmaya Mareykanka markaa tago wadan ay shaqo taalo waayo waa shaqaysanaya horay ayaan shaqo ka aadaya laakiin haddii aad tiraahdo dowladda ayaan caawinaad weydiisanaya arintaasi waxay noqonaysaa in diidmo horay laga siiyo haddaba marka emailka loo dirayay dadka ballamaha lahaa sidan ayuu u qornaa mid kamid ah Soomaalidii loo diray emailkan ayaa ila wadaagay magaciisu kuma qorno marka sidaa darteed shaashada ayaan idin soo saaraya qof kasta uu arki karaa marka qofka soo codsadaha ayaa lagu bilaabay waxa la yiri ballantaadii dhinaca immigrant visa oo 28 bishan u ballansanayd qofkan ballan wuxuu lahaa 28 bishan has been rescheduled waxa la yiri dib u habeyn ayaa lagu sameeyay ama ballan kale ayaa lagu qaban doonaa marka waxaad heli doontaa la yiri email oo ku sheegaya waqtiga ballantaada cusub taariikhda iyo waliba waqtiga sidaas darteed ha imaanin qonsuliyada ilaa iyo amar dambe ballantaadiina dib ayaa mar kale lagugu qaban doona marka qaabka emailkan sidan u qoran ayaa dadka gabi ahaanba loo dirayay qof kasta oo ballan lahaa bishan amaba sidoo kale kulay trainingku inta uu qaadanayo lama oga markaas kadib qofka marka shaqaalaha trainingka loo dhameeyo safaaradaha iyo qonsuliyadaha markaas kadib email kale ayaa dadkii ballamaha lahaa dib loogu soo diri doona waxaana loo sheegi doonaa xilliga ballantoodii dib loo qabtay marka waxa la leeyahay looma baahno inaad la soo xiriirto xarunta qonsuliyada ilaa iyo amar dambe amaba emailkaasi uu ku soo gaarayo oo talaabooyinkaasi kale lagu tilmaamayo marka waa idinka raali gelinayna si hordhaca haddii arintaasi wax caqabada ay ku sababtay marka immigrant visa unit oo US consulate oo Bombay ayaa qofkan oo ballanta ku lahaa wadalkaasi India marka meel kasta oo ballan ku lahayd haddii ay tahay wadan Afrikaana ama Asia ama Europe ama Australia waxa ay tahay in emailkaasi qof kasta loo dirayay loona sheegayay in ballantiisii la kansalay isla markaana ballan kale dib loogu soo qaban doono sabab la xiriira tababarkaasi shaqaalaha safaaradaha iyo qonsuliyadaha la siinayo arintaasi haddii intaasi aan ka gudbo waxa doorashooyinkii xilliga dhexe ee Mareykanka ka harsan wax ku dhawaad 70 maalmood 2 bilood iyo bar wax ka yar marka sidaas darteed doorashooyinkii Israa'iilka ee ugu dambeeyay ayaa qaar kamid ah gobolada Mareykanka ka dhacaya South Carolina shalay waxa ka dhacday doorasho Israa'iil oo aqalka sanadka gabadhii la dhalatay Lindsey Graham oo horaantii bishii hore si lama filaan ah u geeriyooday kadib markii wadnaha uu dhiig uga furmay ayaa waxa ay doorasho Israa'iil la gashay Ralph Norman oo isaguna kursigaasi kula tartamayay waxaan ognahay Lindsey Graham markii uu dhintay kadib madaxweyne Trump in gabadha kaliya ee la dhalatay Darling Graham uu taageeray in inta ka harsan waqtigiisii aqalka sanadka oo muddo 3 bilood ah in iyada loo magacaabo si ay booskiisa u buuxiso gudoomiyaha gobolka South Carolina waa kii u magacaabay isla markaana la dhaariyay haddana waqtigaasi ayay ku jirtaa marka November waxa ay doonaysaa 6 sano oo cusub in la doorto maxaa yeelay Lindsey Graham ka hor inta uusan dhiman ayaa doorashada Israa'iilka uu ku guuleystay marka waxaa jirtay dood 2 toddobaad ka hor musharaxiinta kursigan ku tartamaysa loo qabtay su'aal la weydiiyay marka gabadha la dhalatay Lindsey Graham ee la yiraahdo Darling Graham ayaa dadku ay si weyn ula yaabeen qaabka ay uga jawaabtay waxa la weydiiyay Taiwan iyo waliba badda koonfurta China Mareykanka amaankiisa qatar miyay arintaasi ku tahay haddii ay ku tahayna qaabkee ayay ugu tahay marka su'aashaasi qaab ay uga jawaabtay ayay garanaysaa maxaa yeelay haweeneydan horay xil dawladeed ma aysan u soo qaban siyaasadana waxba kama taqaan markaas kadib waxay tiri arintaasi wax weyn kama oge laakiin militarigeena waan taageersanahay Are Taiwan and the South China Sea national security issues for the United States and if so why or how I'm just going to be honest here. I'm not on national security I'm not that informed on national security but I do support the military. I'm not a polished politician up here. National security is not my thing. Not my area of expertise, but I do support the military. madaxweyne Trumpna hadalkeeda waa uu ku taageeray waxa uu yiri haddii militariga taageersan tahay waxa kale macna ma sameynayso marka arintaasi darteed waxa ay noqotay in la ogaado haweeneydan in aysan siyaasadda wax weyn aysan ka ogeyn saas ay tahay laakiin Trump waa uu taageeray waxayna ay shalay ku soo baxday doorashadii dhacday 53.4% halka Ralph Norman uu helay 46.6% waxaana November ay Darling Graham ay la tartami doontaa Annie Andrews oo xisbiga dimuqraadiga u sharaxay marka kursigaasi kuraasta ay dimuqraadiyiintu ay doonayaan inay ku guuleystaan haddii ay doonayaan in aqlabiyada aqalka sanadka ay soo ceshtaan ayaa qayb ay ka tahay marka waan arki doonaa November haddii Darling Graham ay soo baxdo iyo haddii haweeneyda dimuqraadiga Annie Andrews ay ku soo baxdo kursigaasi aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo